Assalaamu calaykum waraxmatullah waa salaamantiin dhammaantiin kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan markaasi ku bilaabi doono sidii aan hore u ballan qaadnay casharadii ku saabsanaa markaasi web development inagoo ugu horreynba markaasi ka bilaabi doona HTML iyo CSS si markaasi aan iskula fahamno basic fundamentals of web development intaynaan wax kala samayn aan wax yar ka idhaahdo waxay yihiin HTML iyo CSS iyo waxa lagu qabto HTML Hypertext Markup Language waxa loo isticmaalaa markaasi taagida dhidibada website-yada haddaan tusaale u soo qaato ka soo qaad inuu website-kii guri yahay marka aad guri dhisaysid waxaad u baahan tahay markaasi bricks si aad u samaysid markaas gidaaradii ama derbiyadii markaasi gurigaas uu ka koobnaan lahaa sidoo kale waxaad u baahan tahay albaabo iyo sidoo kale waxaad u baahan tahay daaqado ama dariishado kolba sida aad u taqaano waxa kale oo aad u baahan tahay markaasi jiingad markaas ama siligii sare markaasi guriga dusha sare aad u saaraysay wax kale u baahantahay markaas sagxadii guriga ku fadhiisanay iyo waxyaabahaas oo dhan HTML marka waxay qabataa ama waxay markaasi u qabataa website-ka waxyaabaha aan soo sheegno dhan waxay u qabtaan guriga yacni waa meeshii aad ka bilaabi lahayd inaad markaasi samaysid website CSS Cascading Style Sheets tusaale hore aan ku noqono imka gurigii waxaan u samaynay derbiyadii waan dhamaystirnay ama gidaaradii albaabadii waan u dhamaystirnay daaqadii waan u samaynay jiingadii waan saarnay hoostii sagxadii wixii oo dhan waan u dhamaystirnay laakiin waxbaa ka dhiman maxaad u malaynaysaa waxaas inuu yahay waxa ka dhiman markaas colorkii gurigu uu yeelanayay yacni waa guri meel ka taagan oo aan wax color lahayn ama wax qaaba aan lahayn just waa guri keliyata CSS-ku markaa shaqadeedu waxay tahay inay color u samayso markaas website-ka sidoo kale waxa ay xukuntaa font-ka aad u samaynaysid website-kaaga font-kaagu ma waxay noqonaysaa qoraalkaagu ma wuxuu noqonayaa mid Arial ma mid Times New Roman ma mid Georgia color noocee ah ayuu qoraalkaagu yeelanayaa waxyaabahaas oo dhan ay markaasi CSS-tu qabataa haddaba 5 cashar kadib marka aan si fiican iskula fahano kuwa ugu muhiimsan ama elementska iyo tagska ugu muhiimsan HTML iyo waliba selectorska CSS waxaan markaas samayn doonaa ama website-keeni ugu horeeyay waxaan u ekaan doonaa sidan All that being said, I'm ready and I think you are ready too. So grab your computer, water, tea or coffee or whatever you want and let's get started the work. Okay shaqada ugu horeysa aan markaasi qabanayna marka waxa weeyaan inaan la soo degno laba tool oo aan u baahanahay ka koobaad waxa weeyaan markaasi code editor waa meeshii aan ku qori lahayn code-keena oo dhan ka labaadina waxa weeyaan markaasi meeshii aan ku soo bandhigi lahayn wixii aan ku qornay code editor-ka marka wuxuu noqonayaa browser haddaan ku horeeyo markaasi code editor-ka waxa jira qaar aad u badan tusaale ahaan Atom oo kale Sublime Text oo kale Visual Studio oo kale Practice oo kale Note++ oo kale laakiin anigu waxaan doorbidayaa inaan la soo dego markaas Visual Studio sababtoo waxaan aad uga helay colorkiisa haddii ay noqon lahayd colorkiisa designkiisa haddii ay noqon lahayd extensionska ku jira markaas iyo weliba sidoo kale inuu leeyahay live server kuu saamaxaya inaad si toosa u aragtid oo aad browserka ugu aragtid wixii aad ku dhex qabanaysay code editor-kaaga waxaad tegi doontaa markaasi browserkaaga markaad furatid code.visualstudio.com/download
ama waxaan ku dhaafi doonaa linkiga qaybta descriptionka. waxaa kuu soo bixi doona marka page sidan oo kale ah. kadib waxaad dooran doontaa kolba computerka aad isticmaalisid markaas, haddii aad Windows isticmaalisid iyo haddii aad Mac isticmaalisid iyo haddii aad Linux isticmaalisid, kolba computerka aad isticmaalisid markaasi versionkiisa ayaad download garaysan doontaa. aniga computerka uu igu jiraa marka kuma dhufanaya hadda. download samee kadibna geli file aad markaa hadhow heli karaysid oo aan waqti kugu qaadanin inaad eydidid. marka aad intaas samaysid, waxaan markaasi toolka labaadeen u baahannahay wax weeyaan browserkeeni. markaas dhammaantiin waxaad wada isticmaalaysaan browser, way kala duwanaan karaan. sida tusaale ahaan wuxuu noqon karaa Mozilla Firefox, wuxuu noqon karaa Chrome, wuxuu noqon karaa Opera, wuxuu noqon karaa Safari, wuxuu noqon karaa Internet Explorer. laakiin anu markaas waxaan isticmaali doonaa Chrome, sababtoo ah sababta aan ku doorbidayna wax weeyaan markaasi wax weeyaan waa browser aad iyo aad u xoog badan. waxa uu hadhow tolay noo fududayn doonaa markaas inaan tix raaci karayno oo aan arki karayno tusaale ahaan waxyaabihii aan ku qabanay codekeena, tusaale ahaan dfafkeena wixii aan siinay ayaan si toosa u arki karaynaa. It's so amazing browser and it's just powerful. hadhow ayaa gadaal ka fahmi doontaa. haddii uu computerka kugu jiro Chrome, okay, haddii aanad haysan soo degso si markaasi aan iila socotid. waad isticmaali kartaa browserada kale, laakiin si aad markaasi waxaan samaynayaa si fiican ula socotid, waxa fiican markaasi inaad la soo degtid Chrome. waxaad tegi doontaa halkan. haddii kale waxaan linkiga isaga laftirkiisa ku dhaafi doonaa qaybta descriptionka. marka intaad samaysid kadib we're ready to go. okay, intaa markaad samaysid waxaad samayn doontaa markaasi waxaad soo furan doontaa Visual Studiohaagii ama code editorkii aad dooratay. markaad soo furatid kadib markaa waxaan samayn doonaa directory cusub ama folder cusub ayaan bartan ku samaynaa desktopkeena. magaca rabtaad u bixin doontaa. anu markaa waxaan u bixin doonaa markaasi HTML and CSS. adu magaca rabtaa u baxsan doontaa. kadib markaad samaysid directory ama folderkii, waxaad samayn doontaa waa soo jiidaysaa. waxaad ku dhex tuuri doontaa markaasi Visual Studiohaagii ama code editorkaagii. kadib waxaa kuu soo bixi doona sidan. waxaad arkaysaa inuu halkan inoo soo dhigay folderkeeni. sidoo kale halkan aad ka samaysan kartaa adigu markaasi file cusub. laakiin inagu waxaan samaynaa iconka ayra halkaas yaala ayaan markaasi ka samayn doonaa markaasi filekeena kale cusub. marka waxaan odhanaa magacaan u bixinaa wuxuu noqonayaa index.html. halkaas waa inaad wax yar ka taxadirtaa inaanad ka dhigin capital letters xarfaha. sidoo kale waa inaad .html raacisaa, sababtoo filekan samaynanaa waxa weeyaan markaasi mid html. click ma siinaa markaasi. iconkan waan iska xidhanaa ama waan iska xidhanaa daaqada kale. halkan markaasi waa halkan ku qori doono markaasi codekeena. qaybtan waa qaybta markaasi waa explorerkeena. waa halka inoogu soo bixi doonaan faylashaan haysan oo dhan iyo directoryada inoo furan oo dhan. si aad iskaga xidha marka halkan waxaad taaban kartaa Control B ama Command B kolba haddaad Mac isticmaalsid haddaad Windows isticmaalsidba. marka wuxuu kaa xidhi doonaa markaasi daaqadii dhinaca ahayd. haddii ay farta kugu yaryar tahay oo aanad farta si fiican u arkayn, waxaad tegi kartaa view kadibna waxaa odhan kartaa zoom in, ama waxaad taaban kartaa markaasi Command Plus ama Control Plus. waxaan doonaya markaasi inaan ku tuso qaabka ay u ekaan doonto. lama baahna markaas adu inaad garatid waxay ka turjumaysa ereyadan halkan ku qoran. just keliya waxaan doonaya inaan kusii yara tuso qaabka u ekaanayso. halkaas waxaad degi doonoo kale titlekaaga, tusaale ahaan wixii aad rabtid inaad websitekaaga la idhaahdo kale.
halkan oo kale badanka waxaa ku qori kartaa oo kale magaca website-ka oo kale inagu markaa waxaan odhanayo kale my first website. Okay, halka markaas waxaan ku qori doonaa oo kale h1 oo tusaale ahaan hello world aan weynaysan karnaa markaasi. kadib halkan oo kale waxaan ku qori karnaa hello world h2 waxaa tan oo kale h-tani ilaa waxaa jirta h6 marka h4 baynu ku joogsana. keliyata waxaan ku tusayaa un farqiga u kala dhexdhexeeya kuwan. halkan waxaan markaa isagana ka dhigi karnaa paragraph. paragraphka markaan qoran oo kale waxaan soo copy garaysan karnaa text aad doonaysid tusaale ahaan textka rabtid. laakiin Visual Studio wuxuu leeyahay markaa text automatic iyada waxaa qori kartaa un lorium dabeetana waxaa taabanaysaa inta xaraf ee rabtid inuu kuu saaro 60 dhe tusaale ahaan dabeetana tab baa ku dhufanaysaa. haddaan marka save idhaahdo save baan hadda idhi markaas ad arkaysaan waxay noqotay 60 kelmadood. haddaan kasoo baxa halkan markaasi oo aan taga markaas markaa directorkeeni kadibna aan halkan imaado waa fileka aan samaynay markaas right click open with dabeetana aan markaa Chrome ku furno waa kan markaas sidan u ekaan doonaa. farqiga u dhexeeya markaasi h1 iyo h2 iyo h3 iyo h4 yacni waa size-ka sida arkaysiin h1 ayaa ugu wada weynaanaysa h2 baa ku xigaysa iyo sidaasay usii soconaysaa. p paragraphtina waxay noqotay markaa 60kii kelmadood aan taabanay sidanay noqdeen. imika waa meel aad u fool xun. keliyata waxaan doonayna markaas aan markaasi view kaasi siiyo waxaan samayn doona markaas. laakiin sidaad arkayseen hadda marka aan wixii halkan ku qoray codekeeni markaan halkan ku qoray waxaan sameeyey waan kasoo baxay dabadeetana waxaan dul imid directorkeeni oo intaan kasoo baxay ayaan markaasi halkan kusii dhuftay oo halkan aan furay. markasta ma samayn karna taas waayo waxay nagu noqonaysaa dhibaato. marka sidaan idiin sheegay Visual Studio wuxuu leeyahay markaasi live server kuu saamaxaya inaad markaasi adigoo halkan jooga aad toos right click intaa siisid ay halkan kuugu soo baxaysa markaas open with live server. marka waxaan sameynaynaa extensionkaas si aan usoo dhowlgaraysano. waxaad tegi kartaa halkan dabadeetana waxaa ku qori kartaa live server install baad ku dhufanaysaa markaas. haddaynu ku noqono hadda reload ayaad odhanaysaa marka maxaa la dhahdaa aan ku noqono inaga xir qaybtan aan ku noqono meeshani waxaan toos markaas halkan uga tegi karaynaa. hadda uma baahnin markaas intaan ka baxnaan aan filekeeni dul tagna dabeetana aan furno. hadda waxay noogu soo korodhay markaas halkan open with live server kadib marka halkaa ku dhufano wuxuu toos inoo geynayaa markaasi marka wuxuu toos kuu geyn doonaa browserkii. waxaa laga yaabaa inaad waxba ka fahmin wixii aan hadda sheegayay laakiin waa okay muhiimadeedu ma ahayn taas. keliyat waxaan doonaya inaan markaasi dusha kaasii tuso. waxaan halkan ku baran doonaa markaasi basic html tags markaas waxaan oo dhan waan iska tirtiri doonaa. waxa lagu bilaabaa file kasta oo html marka la qorayo markaas marka laga reebo hal tag oo aan gadaal ka sheegi doono waxaa lagu bilaabaa markaasi html tag. marka halkan sidaad arkaysiin waa mid markaasi furmaya iyo mid markaasi xidhmanaya waa opening tag iyo closing tag. wax kasta oo markaasi aad qori doontaana wuxuu markaasi dhexgeli doonaa halkan ayaa lagu qori doonaa. haddii ay noqon lahayd hadduu noqon lahaa headkaagii hadday noqon lahayd bodygaagii hadday noqon lahayd footerkaagii wax kasta waxaad ku dhex qori doontaa markaasi halkan. sidaad arkaysiin waxaa hareeraha ka xiga kelmadda html
less than sign iyo greater than sign. Laakiin tan waxaa dheeraad ku ah backslash taasoo sheegaysa markaas xidhitaan yacni taggii aa furtay oo xidhmaya. Waxaa ku xigi doonaa taggan baranna ku xigaa wuxuu noqonayaa head. Headka isaga waxaa la dhex dhigaa markaasi oo lagu dhex qoraa sida tusaale ahaan titlekaaga oo kale. Headka waxaa tusaale ahaan lagu qoraa isagana titlekaaga website-kaaga titlekiisa iyo javascript oo kale waad ku dhex qori kartaa linkideeda scriptiga. Sidoo kale waxaa lagu dhex qoraa markaasi halkaasi markaad ku xidhiidhinaysid CSS ama aad ku xidhiidhinaysid website-kaaga CSS-kii ayaa bartan linkigii lagu xidhiidhiyaa bartan la dhigaa. Titleka waxaa loo isticmaalaa inaad ku qortid magaca website-kaaga waayo hadhow waxay fududeynaysaa browserka waxay u fududeynaysaa search engine-ka inuu si dhib yar ku helo markaasi website-kaaga oo qofku markuu google garaynayo magaca website-kaaga si dhib yar ay markaasi uu kusoo bixi karaa. Marka halkan waxaad loogu talagalay in lagu qoro the name of your website. Tagga kale aan doonayna markaas inaan baranaa waxa weeyaan markaasi body tag. Bodyga waa halka markaas marka laga imaado kuwan aan idhi kan waxaan idhi filekaaga oo dhan waxay dhex imanayaan html opening tag iyo html closing tag. Labadaas ayuu dhex imanayaa wax kasta oo uu ka kooban yahay filekaagu markaas. Laakiin bodygu wuxuu kaga duwan yahay taas. Bodygu haddaba waxa weeyaan halkii ay dhex imanaysay contentiga uu ka kooban yahay website-kaaga oo dhani. Markaan leeyahay maxay ku kala duwanaanayaan markaas waaye halkan iyo halkani. Halkan waxay ku kala duwanaanayaan intan dadku ma arkayaan oo wixii aad halkan ku qorto qofku markuu website-kaaga soo booqdo ma arkayo. Marka laga reebo magaca website-kaaga oo hadhow toona tegi doono dusha sare yacni geeskeeda sare tegi doono mooyaane dadku ma arki karayaan markaas waxa dhinacan aad dhigtid. Bodygu markaa wuxuu kaga duwan yahay waa halkii contentigoo dhan ay fadhiisanaysay yacni waxaad halkan ku qorto badankoodoo dhan waa halkii markaas dadku arkeen website-kaagii weeyaan. Tagga ku xigee aan baran doonaa wuxuu noqonayaa markaasi hashtags. Marka hashtags waxay ka koobantahay h1 ilaa iyo h6 waxaana loo isticmaalaa markaas inaad textkaaga ka dhigto mid ka waaweyn qoraalka kale oo markaasi ka markaasi muujisan oo kale ayaa loo isticmaalaa. Halkan haddaynu tusaale ahaan ku qorno markaas tusaale halkan waxaan ku qorinayo kale about our team. Haddaynu saan idhaahno markaas aynu safe nidhaahno haddii aan markaa idhaahdo open with live server waxaad arkaysaa markaas inay halkan ka soo baxday oo text waaweyn ay noqotay markaas. Tagga kale ku xigaya wuxuu noqonayaa markaasi p tag. Waxaana loo isticmaalaa markaas qoraalka caadiga ee markaasi tusaalaan textka caadiga ee aad u sameynaysid contentigaaga. Lorium waxaan rabaa 30 kelmadood oo kale. Intii aan wax ka qorqori lahaa baan wuxuu leeyahay markaas Visual Studio wuxuu leeyahay text markaas uu isagu ku generate garaynayo. Kelmadahan wax macnaa ma laha kaliya waxa loogu talagalay hawl fudaydin intii markaa aad wax ka qorqori lahayd. Marka haddaan safe nidhaahno oo haddana aan ku noqono markaa meesheenii waxaad arkaysaan inay halkaasi markaa timid. Laakiin hadda waxaan arkaynaa inuu aad ay u fool xun tahay oo sentence dheer uu yahay oo fool xun. Mid baan samayn karnaa taas oon ku hagaajin karnaa. Waxaan odhan karnaa ka dhig markaa 2 paragraph oo halkan ka kala xidh. Markasta markaad furtid mid waa inaad markaas closing taggiisina u samaysaa. Okay, wakaas iminka sidii hore way yara dhaantaa.
way kala xidhmatay, sentencekii dheeraa uu soo gaabnaaday. Mid kale ayaad samayn kartaa, waxaad odhan kartaa break. Waa taa kale oo isaguna loo isticmaalo markaas. Tan imika markaan saan idhi waxay ka dhigantahay 2 sentence. Laakiin markaad san tiraadid PR, markaad PR tiraadid safe aan idhaahno, waxay ka kala jaraysaa markaa break, waxay ka kala jaraysaa linekii bartaas, laakiin waa isla hal paragraph. kaas kana halkaasaynu kasii kala jari karnaayo kale, halkaan kale aynu ka kala jari karnaa. hadaynu markaa ku noqono wakaas, qaabkaasu noqday. haddaynu qoraalka sii badino ama aynu intan qabano oo markaasi ama command c command v, waad arkaysaan siduu usii badanayo. waxaanad markaas halkan ka dareemi kartaa markaas inuu kan yahay hal paragraph, kan kalena uu yahay paragraph kale, laakiin dhinacaan u isticmaalnay kala goygoyn markaas breaking. haddaynu markaa odhan lahayn mid walba paragraph gooniyaan ka dhiglayn, waxa u dhexayn lahayd markaa space fara badan mid walba, sida halkan ay ugu dhexeeyaan spaceyadu. ka ku xige ee aan doonaya markaa inaan barano, taaga ku xige ee aan doonaya inaan barano, ka ugu dambeeya noqon doonaa. waxa weeyaan markaasi aan idhaahda 2 taag oo kale, waa ul tag iyo markaasi ol tag. maxay yihiin markaa labadan maxay yihiin? waxaa loo isticmaalaa markaasi list in lagu sameeyo labadaba. kan waxa weeyaan unordered list, oo waa list aan markaasi number lahayn. kana wuxuu noqon doonaa markaasi ordered list. marka mid walba waxaa sii dhexgelaya markaasi taag kale oo isagana la dhahdo li, oo sheegaya markaas inta midh ee uu listiga uu ka koobnaanayo. haddaynu markaas ul ama kan unordered listiga aynu idhaahno waxaan doonaa ina dhex imaadaan, tusaale ahaan waxaad tiraahdaa lorium 4. weli waxaan isticmaalayaa textkii markaas uu automatic u generate garaynayay Visual Studio. ii copy garee. haddaan safe idhaahdo oo markaa ku noqdo markaasi browserkaygii, waxaad arkaysaan inay soo baxday markaas 3 dhibcood. laakiin markaan isticmaalo ordered listiga, mar walba waa inaad li u isticmaashaa taaga li markaaad doonaysa inaad wax ku dhex qortid. kuwan waan iska masixi karnaa, deetana intanaan soo copy garayn karnaa, kadibna halkan aan dhex dhigi karnaa save. kadib markaan ku noqono browserkeeni, waxaad arkaysaan inuu kani wato markaas lambaraan uu wato, laakiin kii hore aanu wax nambara ah aanu wadan. marka hadda waxaan baranay title, headku waxa la dhigaya la gelinayo, body inuu yahay meesha contentiga oo dhan ay dhex imanayso. haddaad eegtid imika wax kale halkan kama muuqato, waxaan aragnaa un inay ka bilowmatay about our team, yacni meeshii bodiga dhexdiisii un ay ka bilowmatay, waayo waxaan kale ma arkayaan ama ma qabanayaan indhahu, tusaale ahaan marka uu qofku galayo websitekaagii. marka laga reebo titleka oo isagoo hadhow toole markaasi iman doona dusha sare ee browserkaaga. waxaa kaloon baranay sidoo kale h oo ilaa h6 ah. haddaan kan ku yara tuso sida u ekaanayso h3 oo kale, marka saasoo kale ay uga yaraanaysaa, markaasi sizekeedu qaabkaasu uga yaraanayaa. h2na way kasii weynaanaysaa, h4na tanay kasii yaraanaysaa, saasay usii soconaysaa. waxaa kaloo baranay markaas break tagga iyo ul tag oo loo isticmaalo markaasi in list lagu sameeyo, markaas aan laakiin nambara loo yeelayn. sidoo kale ol tag, tanina inay lidaas inay sheegayso inta midh ee markaasi dhex imanaya
ul ama ol taagaaga. Intaasan kusoo gabagabeynaya maanta casharka. Tani intaanu ku kulmi doonaa casharka kale. Nabaday.